السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر ومحي محان كفائدة يا زكاة الفطر إذا هدي أم بحيو فيديو أيان إن شاء الله تعالى سيكوبا وإشاري طونا وحين كفائدة إنه زكاة الفطر ذا بحنت إذا هي زكاة الفطر ذا وحايتهاي وهرين وحين إلهي سبحانه وتعالى وما هد علينا نمعوين كفرها بدلنا الله سبحانه وتعالى وإنه من نيستي ولا ليال زكاة الفطر ذا وحويان صدقو لبحيو مركا أي رمضان دماتو صدقو لبحيو مركا أي عيد كسوق شمالك عيدك صلاة إنتان لآدين كهر صدقة لبحيو أيان ليلهدا زكاة الفطر ليلهدا قربا لواجبيي زكاة الفطر دا وحال لواجبيي زكاة الفطر دا سنضي لباد هجرية أيان لواجبيي زكاة الفطر دا زكاة الفطر دا حكم كيدوا محي ما فرل با مسوا سنة حكم كيدوا فرل وانا واجب سيدا وتلماما يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وسورين ايو آيات الماما يا زكاة الفطر دو إنا يتهي واجب فرل ايتهي يي كواجبتا زكاة الفطر دو يي كواجبتا زكاة الفطر دو وحي كواجبتا قف كستا او مسلنا ايي كواجبتا سيدا حديث النبي قبا عليه الصلاة والسلام او تلماميو يي كواجبتا زكاة الفطر دو وحي كواجبتا غف كستا او كريا او اوديا زكاة الفطر دي انو كبحيو عدة يعني اي كواجبتا انو كبحيو اساقا نفتيسا انو كبحيو اي كواجبتا زكاة الفطر دو قورمي واجبتا زكاة الفطر دو زكاة الفطر دو وحي واجبتا مركا عيدكو صوغلو اي واجبتا زكاة الفطر دو مركا لهلو لبا ارين لهلو سبب iyo sharti marka la helo ayay zakaatul fitr du waajibtaa waa maxay sababku waxa weeye in bishii ramadaan uu soo haleelay oo bishii ramadaan ay qofka u soo gashay shartiguna waa maxay in ay ciidkii ay u soo gashay oo ciidii uu qofka u haleelay sida yani zakaatul maal kaba loogu shardiyo laba arin oo ah sabab iyo shardi sababku waa maxay in nisaabkii ay xoolaha qadarkii ay gaadhaan ay sakadu yani ay ku waajibaysay iyo in xawlkii la helo oo uu sanad uu ka soo wareego hadaynu soo koobno sida fuqahadu inta badan ay isticmaalaan zakaatul fitr waxay waajibtaa marka la helo soom iyo ciid la helo ayay zakaatul fitr waajibtaa sida zakaatul maal kuba ay waajibto marka la helo nisaab iyo xawl marka la helo sida ay waajibtaba ugu dambeyntii zakaatul fitr bixinteeda maxaan ka faa'iidaya waa maxay waxa aan ka faa'iiday marka aan zakaatul fitr aan bixiyo nabiga calayhi salaatu wassalaam inoo tilmaamay sida xadiiska Abdullah ibn Abbas uu tilmaamayo wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wassalaam farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakaatul fitr ظهرة للصائم من اللغو والرفث وضعمة للمساكين زكاة الفطر أيا نبي عليه الصلاة والسلام واجب يالي وحو واجب يالي ظهرة للصائم si ay u daahiriso qofka saa'imka soomkiisa ay u daahiriso oo yaani naqsigii soomkiisa ku jiray laqwigii ka dhacay inta uu soomana ayay kabaysaa waxay in badan oo kamid culimadu ay ku tusaaleeyaan oo ay tilmaamaan zakaatul fitr waxay ka dhigan tahay qofka saa'imka uga dhigan tahay meesha yaani sida sujuudu sahwigu ay salaada ay uga dhigan tahay oo sujuudu sahwigu sida ay qofka salaadiisa nuqsaanta yaani ku tim ay u kabto ayay zakaatul fitr u kabtaa نقصانتي يعني لغويغي كو يمد بيش يعني انت اد صومنيد لغويغي يا وحيابي كا دحاي ايي كبايسا فد يعني فائده لباد ku jirta waxa weeyaan mid yani uu helaya mujtamaca masaakiinta ee fuqarada ay wax siinayso ayay ducmo iyo quudan u tahay si ay maalinka u farxaan si ay maalinka u dhargaan ayaa yani aad ka faa'iideysaa bixinta zakaatul fitr ugu dambeyntii waqtiga ugu fadhiga badan ee la bixiyo sida aakhirka xadiiska nabiga calayhi salaatu wassalaam uu tilmaamayo man addaaha qabla as-salaah fahiya zakatun maqbuula bi nabiga calayhi salaatu wassalaam qofka yani la yimaado ee guta salaada ciidda ka hor qofka zakaatul fitr la yimaado ee bixiya zaka maqbuula bi nabiga calayhi salaatu wassalaam laakin man addaaha ba'da as-salaah fahiya sadaqatun min as-sadaqat qofka yani salaada kadib la yimaado salaada kadib bixiya ay waajibkiisa kada uu ka dhacaya لكن وهي صدقة من الصدقات صدقوين كمدة وقدام بينتي ولا ليال نفط إذا أيان كبرى روتينيا بحنت زكاة الفطر
adigana waan kugu baraarujinayaa si aad u hesho daahirin soomkaagii lagu daahiriyo iyo ka farxin aad ka farxinayso masaakiinta aad ka farxinayso dadka sakaatul fitrida la siiyo maalinka insha Allah ta'ala inahaas ku soo koobaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi